munaasabadaasi imtixaanaadka loogu shaacinayay dugsiyada ay maamusho hay'adda Geeska Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha waxbarashada tooska ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gudoomiyaha hay'adda Geeska Afrika mas'uuliyiin kale oo ka socday hay'adda iyo waliba maamulayaasha gudoomiyaasha gobolada ee hay'adda Geeska Afrika waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Geeska Afrika Sheekh Maxamed Ali Geedi iyo waliba Maxamed Cilmi Samatar madaxa waxbarashada ee hay'adda Geeska Afrika waxaana ka warameen taariikhda ay soo martay hay'adda Geeska Afrika iyo waliba qaybaha ay ka kooban tahay hay'addu waxaana kamid ah hadaladoodii tarbiyada islaamiga ku dadaalnay in diinta barna dadka iyo aqoontii kale ujeedaduna waxay in la soo saaro qof diin leh akhlaaq leh aqoon leh intaas uma intaasoo imtixaanaynu qaadnay wali maalin qoral qof kama soo caban oo lama oran waxba isbaal maray lama sheegin hatta anigu imtixaanka iyo waraaqda iyo natiijada maba ogaadin halkaas baan ku ogaadaaba si u tahay hatta aniga leeba tuso adeegaas laakiin sanadkan wixii ka dambeeya مع الدولة ينقلنا حكومة أي ينقلنا وإحنا وينو سكر ديان وحين قد إلهانا وحنا وبهنا ينكبنا أو لقدي عربي ذا هيد يا التربية دي يا أخلاق دي وحلا ينوقف ديان ينصدي وأتكينه تسويد ذا ليرا الله ينقرب وي inagoo la gali doono imtixaanada iskuul dawladda la gali doona haddana waxa inoo dheeraada ardaydii intii aynu u dhigi jirnay iyo tarbiyadii iyo akhlaaqdii iyo diintii iyo aqoontii kaleba intiiba inaanay hoos u dhicin hay-addu waxay qaybta waxbarashada u aasaastay ama xafiiskani u aasaasmay sidii loo soo saari lahaa dad hormood ah oo isu dheelitiran hadday noqoto aqoonta diiniga ah iyo aqoonta maadiga ah waxa tilmaan u ah productionka iyo midhaha iyo wax soo saarka hay'adda gudoomiye ku xigeenka xafiiska waxbarashada hay'adda isla markaasna madaxa imtixaanaadka waxa weeye productionka iyo midhihii iyo wax soo saarka hay'adda weeye sidoo kale kormeeraha guud ee hay'adda Geeska Afrika waa wax soo saarkii iyo ardaydii ka soo baxday iskuulada hay'adda lama tirin karo meel kasta ay joogaan madaxtooyada ay joogaan wasaaradaha kala duwan bay joogaan intaba ay waxaan filayaa in bulshada ayaa uga marxaatiya marka hay'addu way ku guuleysatay la oran karaa ujeedada ay u aasaastay xafiiska waxbarashada waxa dhigta sanadusheedkan ugu dambeeyay ee xafladiisii aynu fadhino arday ka badan in 13,000 oo waxa fadhiyay sanadkii dhamaaday 13,223 hay'adda dugsiyadeedu waxay ka jiraan dhammaan gobolada Soomaaliland ayay ka jiraan dugsiyada ay hay'addu ay abuurtay ama ay maamusho ha ugu badnaadaan gobolada ugu waaweyn ee Maroodi Jeex Togdheer iyo gobolka Sanaag tayada ardayda waynu tilmaanay la isu sheegi maayo bulshaweynta Soomaaliland waxaanu u sheegaynaa uguna bushaareynaa hay'addu inay tii uun ku taagan tahay iyo tubtii isla markaasna aanay ka daali doonin sidii qarankani u soo saari lahaa arday hagata hoggaanka mustaqbalka qarankani aadan xaaji maxamed idris oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Geeska Afrika ayaa ka waramay tirada u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga kaas oo si guudna uga warbixiyay imtixaanaadka sanadkan ardayda imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ay ugu talagalay inay galaan waxay ahaayeen 853 arday waxa imtixaanka u fadhiistay 848 arday waxa imtixaanka aan gelin 5 arday ayaan gelin ardayda dhammaantood waa ay gudbeen ma jiro hal arday oo imtixaanka ka hadhay waayeen ardayda guud ahaan waxa ku baxay ama mumtaaz ku baxay 77 arday oo u dhiganta boqolkiiba 9 u dhiganta waxa B ku baxay ama jayyid jiddan ku baxay 225 arday oo u dhiganta boqolkiiba 26 waxa C ku gudbay amba jayyid ku baxay arday 285 arday dhan oo u dhiganta boqolkiiba 34 waxa D
amba maqbuul ku baxay 261 arday oo u dhiganta boqolkiiba 31 arday. intaasi waxa inoogu dhan natiijadii guud ee ardayda. natiijada tafaasiisha iyo iskuul walba sidooda insha Allah ku gudbin doonaa inuu u siin doonaa. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waxbarashada tooska ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Xuseen Cabdi Cawil Foodcadde waxaana kamid ah hadaladii agaasimaha. nin waliba meeshuu ka yimid inuu manhajkiisii u leeyahay markaas waxaynu dhigaynay manhaj Suudaaniya manhaj Qadariya manhaj Sacuudiya manhaj Kenyana muddo kadib haddana waxaynu ogaanay oo in soo dhaafnay wareedhaha haddii imika 20 kan manhaj ee manhajku waxa weeyaan waxaynu ka doonayno ilmaha reer Somaliland ee muslimka ah ee wadaniga ah ee reer Somaliland aynu ka doonayno mustaqbalka muxuu noqonayaa markaynu isla eegno muxuu noqonayaa maxaynu ka doonaynaa markaas aynu leeyahay maxayna gaarsiinayaa waxayna gaarsiinayaa manhajka ka inoo dhan dabeetana markaas manhajkii la oranayay ayaynu u dirayna khubara la fariisinaya manhajka sanad markuu 5 sano gaadhaba mar baa la yiraahdaa inta ugu yar hal la eego salahan hadii 4 sano uu yahay 4 sano iyo 4 sano iyo 4 sano uu yahay oo dugsigeena hoose lower primary-ga iyo upper primary-ga 1 ilaa 8 uu yahay 4 iyo 4 uu yahay 4 mar baa la eegayaa dabeetana haddana waa la tijaabinayaa marka 4 la dhigto markaas inta ugu yar marka waxaynu ogaanay hadii bal haddaba ka warrama 20 manhaj oo dalkeena salahan yareeyba sidee noqonaysaa in arday caankee inoo soo baxaysa kuwa gurigaaga jooga labada iskuul dhigtaa ayaa waxa soo saaraysaa arday Qadariya iyo arday Suudaaniya oo ilmahaaga aad u haysta adigu laakiin qafaskuun baa ilmahaagiye maskaxdu waa dal kale tii haddana dadkii markaa ku soo beegmay waxa la sameeyay in bal laga fariisto la yiraahdo sidee baynu manhajka isna uga dhigi karnaa arday reer Somaliland oo muwaadin ah oo nugu ekaysiin karnaa wax aynu ka doonayno muxuu noqonayaa ardaygaas tii waxay keentay in sanadadii ugu dambeeyay manhajka la yiraahdo hal la mideeyo waad maqlayseen in badan iyada oo dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada in badan ay jireen fadhiyo badan sidaas aan oranaya halka loo socdaana qof waliba uu keenayay fikirkiisa iyo sida uu leeyahay tanaasaxa ugu dambeynna la isla qaatay qaabka loo dhaqayo dugsiyada gaarka loo leeyahay oo aanay ka duwanin qaabka loo dhaqayo dugsiyada dawladdu ay gacanta ku hayso waxa la keenay in dugsiga dawliga ah sida dugsiga gaarka loo qiimeynayo la qiimeeyo in horta diiwaan gelin baa la yiri kan baa laga bilaabayaa kan dawligana la diiwaan geliyo in sanadku markuu dhamaado ardayda imtixaankooda ay keenaan 4 xafiis ee loogu tala galay inay keenaan xafiiska gobolka geyn uu ka tirsan yahay xafiiskaas si qaybino waaxda dugsiyada iyo waaxda kormeerka iyo halka ay qusayso geynaya waxa loo qaybinayaa imtixaankaasi waa sharciyadii ardayga bari ka maalin markuu bedelkiisa u baahan yahay iyo marka baadhis ugu baahan yahay inaan qof kaliya lagu soo koobin iskuulka sharciyada ugu horeysa waa taas waa Maxamed Xuseen Ibraahim Zam News TV magaalada Hargeysa BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga payc